marka aniga war badan ma aqaano mana cili aqaano mana heesi aqaano laakiin waxaan rabaa Soomaalinimada dadka inay ku weynaatay 22 sano dhibkii la wada arkay gees maanta waan wada gaaray qasaare qof Soomaali oo dhihi karin ma jiro ehelkaygiya dagaalka ku dhintay ama ehelkaygiya badda ku dhintay ama ehelkaygiya si uu noqday gees dhibaatada maanta waan gaaray marka waxaa la rabaa wadankii lama hilmaami karo in dib loo noqdo iska naqana maahan haday meesha nabad ahayn nabadu waa very first priority oo qofka yeesho hadii nabad jirto wax kasta la heli doona insha Allah marka niyadana inama al-a'mal bin-niyya wax walba waa niyada inaan niyadeena gelino wadanka in loo noqdo dadna anaga maanta alxamdulillah waa soconayna waa shaqaysanayna caafimaad baan qabnaa dadna inta ba haysana wadanka jooga caruura dalkiina qof walbana wadankiisa waxa uu istaagay dadkiisa marka aniga gabdhaha Soomaaliyeedna qaasatan xawataako waxay u dhimatay gumaystihii iyadoo calankeena sita ayaa la dilay maamo Timra Ukaash Guuleed Allah yarxamul raaximiin labadoodaba caawa waa dhinteen oo nalama joogaan iyadoo xaamilo ah xabsiga ayay ku dhashay qarannimadeena iyadoo dagaalamayso waliba bil August iyadoo gabadheeda August loo bixiyay maanta waxaa kaloo jirta maama Xaawo maama la dhaho oo qof aabaheed abkowgeed oo uga tagay dadka ku daawaysa oo maanta maasha Allah maama Xaawo Cabdi marka gabdhaha Soomaaliyeed oo annaka 22 sano waxaan wiilalood arkaysiin gabar la keentay haday dhahan qof kala keenana beentiina leeyahay waxa maanta gargaarka bini'aadanimo gees qabtay eeda wax taray aaba wax taray wax walba inkastoo lagu xantana dagaalkeena ka qayb galnay haddana gabdhihiya hormuud marka gabdhow kaca wiilasha kiciya eeda hadad u tiin abareerada u tiin kiciya because iyagana barita waa nimankii hogaamin lahayd oo maanta aan dhahayno wadanka iyagoo suga marka madaxweynaha waxaan rabaa wax yar inaan u sheego cali talooyinkan ayaan laga badinin saasaan nagu soo gaartay waa dhageysanaysan cali masaafkiisa talooyin yaa loo dhiibana leer marka aqoonyahanka la doortay oo hambaliya iyo duco aan dahkaaga dhigay doorka Soomaaliyeed hadii daa'inka yiraah dadku waa wada damqanayaan dulqaadka badi dadku dulmi badan iyo diihal baahaya dulqaadka badi dalka gudihiisa dumarka iyo caruurta inta la dulmiyay dulqaadka u badi dal shisheeye kuwa tagay dalalka dariska ah iyo diasporada dhamaantoodna dulqaadka u baday marka insha Allah in waxaan rajaynaa dastuurkan cusub markii la ansixiyo shanta Soomaali inay isku timaado lees cafiyo gogol labaad la fidiyo inta laftirkeena ku fidaynaa gogosha in lees cafiyo hadii la yiraahdo runtan haddaan idin sheego aqoontu doorka Soomaaliyeed number 1 ay ka galaysaa qofkan aqoon haysanin waxba ma haysto ilaa jahliga waa rafaad qofka haduu jahli yahay inuu dadka dilo inuu dhaawaco wax walba ku fakara marka caruurta aqoontooda lagu dadaalo dhalinyaro wax barta waxbarashadu waa number 1 gabdhaha Soomaaliyeed oo idinkana waxba niyada ha ka jeebina 30% ayaan baarlamaanka ku leenahay waana ka dhalayayna 30% waa loo baahan marka laga yaabo inaan ra'iisul wasaare naqana 4 sano ku xigta waa macquul inkastoo annaka diinteena yaani xushmad darteed inaan madaxweyne noqon karin oo la badan oo qaban karna wax badan oo wax tari karna marka ha iska jiifanina waxa la barto waxbarashadu waa muhiim aqoonyahanka Soomaaliyeed Allah u naxariistee abwaan hadda nala joogin oo Cabdulla Geedanaar wuxuu yiri aqoonyahanka Soomaaliyeed oo gaar ahaan adiga haba kugu adkaatay adaa ku amran guushayna marka guusha ninka aqoonyahanka hay xigta
ninkan wax baranina siciisaaba dibi dhalay ma sabentay way marka waxa waaye waxa la barto quraanka laftirkiisa qofka barto deganaan iyo dabeecad oo ka qaada marka idinka idin jirta ama maadi u baxa madiina u baxa madka rabtiin laakiin hal la barto marka insha Allah aniga waa socdaa wax kalena uma socdo dad badan oo hadda intaan maanta cawada waxaan islahay waxaad u tagi doontaa Soomaalida inta taqaan marka in badan oo aqoon waa ii muuqata barasho wanaagsan aniga waa bixir rabaa ducadane kollay igu tufteena ama hawada diyaaradda igala soo galisay aniga waan naqday wax kalena uma socdee waxaan rabaa yani lacag waxba ma tarto laakiin dhulkayga darajadiisi maanta qof walba been hadaynan isu sheegaynin waa dareensanaa inaan qurbo joogno habeen walba markii telefoon lagu soo diro lagu yidhaa you have this amount to do ama hebela laga raba wadanka xay keena ma idin qabataa basa waa beentay ama naag xafiis inta u tagsiinay attitude idin siisa excuse me ay idin tiraa ma xanaaqdiin aniga wax badan oo qurbo joogay hadda koor waxaan dhigi jiray waa laysoo lugooyay laakiin hadda dhihi maayo hadda wadankii dawladda u yeeshay wadankii dawladda u yeeshay haddana yaana hilmaamine Shariif Sheekh Axmed asagana waxaan leenahay garabkiisa Allah galo aniga runtii asagan taageeray mana qarihaayo waxaan islahay nabadan la helay ha sii wado laakiin Xasan Sheekh Maxamuudna waa mutacallim asna waa taageeray laftirkiisa marka ilaahay garabkiisa ha galo inaan hadda ka dibnin banaan xukunka oo saan ugu dhiibo dalkeenna waxaa ka horabeen aan jaamacadda anoo joogaan political analyst oo Fuad Cajami hadaad maqasheen oo CNN iyo meelahaas ka hadlaan noola keen xawira wadankiina waxa ka buuxa khayraad laakiin inay heshiisiin ku xiran yahay marka waa fakareenka guriga markaan imid waxaan eri ninkan runta u sheegay been ba sheegay laakiin waa runta ma dhigi karin moogtay dalkaygu mid sareeyo weeyo sabool ahayn sisinta iyo subagana xoolaha laga sahmiyo batroolko saafi ahna wallahi baarti wacan buu ku jira yani waa buuxa been maahana laakiin saantana dhigi maayo Soomaali niman ahayn dalkii waxa lagu soo hogaanshay waa ogtiin hadda la sheeg looma baahno marka dhulka annaka iska leh qofka Soomaaliga tourism ka dalxiis lagu imaana hadda Florida waa aadi maano jasiira tagaysin المعانة تجيسين بربرة تجيسين بوساسة تجيسين أيلة تجيسين حافونة تجيسين هذا كم غن حسماية تجيسين وعمل كم مغن مركا إلهي كعب صدا إسقطوب نادا ما أنت الصومالي والصومالي قالوا قبيل ما يغنوا عربك إذن تلاقي قبيل إذن ما أقول لفتركيس مركا thank you جمهورية جيبوتي يدر والله يا هاي walaalkeen Ismaaciil Umar Geli shacbiga jamhuuriyadda Djibouti hanoolaadano walaalana garab galay oo marnaba aan la hilmaami karin taariikhdana ku xubsan dawladda Turkiyana af Turkiya u baran doonaayo kana marka thank you Turkiya laftarkeeda lama hilmaami karo anigu military ma halaaga ama soo thank you wallahi wadana Sheekh Maxamed Sheekh Ismaan Jawaari idan kana waa taqaaniin hadda waxa la yiraahdaa dastuurka niman qori aqoonin baarlamaanka wax kama qaban karo marka guul noo dhalatay maano hadoo maanta aqoonyahan intaas oo sano Norway joogay dastuurkana qori yaqaan oo maanta dastuurkeena draft garay wixii la diidana waa laga bixbixin doonaa oo madmadoobaha ku jira ma garad marka aan israacno dalkii aan u noqono anigu diyaaran ahay walaalkay diito cawir Somali Airlines aan suga dabla bilood darawal diyaaradeed hatta saa xukumo waran dhowna wuxuuna soo siin doonaa akhbaarka hadii la yiraahdo duulimaadka saacaday bilaaban doona laakiin aniga Juba Airlines si raaca waa sii socdaa marka afis iyo masaamax hala lees cafiyo qalbiyada ya waxba la isugu haynin dalkii waa kacay aanu istaagno everybody is going home let's go home for the last time marka salaam